إلهي سبحانه وتعالى dumarku wuxuu ku sameeyey khaasatan kuwa iimaanka leh miise iyo qiimo iyo qaayo aad iyo aad u weyn. waxaad ka fahmi kartaa waajibaadka ilaahay dusha ka saaray subxaana wa tacaala. waxaad ka fahmi kartaa qiimaha dumarka loo yeelay sida ilaahay u amray subxaana wa tacaala inay ku dadaalaan xirashada xijaabka iyo dharka islaamiga ah. ilaahay asagoo tilmaamaya ayuu yidhi yaa ayuha nabiyu nebigaanow qul liaswaajika gabdhahaaga waxaad ku dhahdaa qul liaswaajika wa banaatika iyo wa nisaa'i lmu'miniin xaasaskaaga la hadal. waxaad la hadashaa gabdhaha aad dhashay, waxaad la hadashaa gabdhaha mu'minaadka ah ama wiilasha mu'miniinta gabdhaha u jooga dhammaan oo amar sii. waxa la amray ma aha walaalayaal inay dirac qaataan, waxa la amray ma aha walaalayaal inay isqaawiyaan, waxa la amray ma aha inay tabaruj iyo bannaanbax sameeyaan, waxa la amray ma aha inay kalaabyada iyo meelaha aroosada ka ciyaaraan, laakiin maxaa la amray yudniina calayhinna min jalaabiibihinna, is-astura oo isqariya. waayo gabdhuhu waxaa lagu tilmaamaa waxa ugu qaalisan bay ka mid yihiin ee adduunka jooga. waxyaabaha aadka loo jecel yahay ayay ka mid yihiin ee adduunka jooga, si uusan nin kasta si sahla u helin, si uusan nin kasta gacanta ugu taagin, si qof kasta uusan ugu hanqal taagin ayaa waxa qaaliga ah ee dhaymanka ah ee dahabka ah meel asturan baa la geliyaa. sidaa darteed dumarka islaamka ah waxa uu ilaahay ku sharifay inay jalaabiib qaataan, waxa uu amray inay xijaabka islaamka labistaan, waxa uu amray inaysan iska dhigin badeeco raqiis ah. walaalayaal sida la fahmi kara maanta waxaad arkaysaa qaawanaashiibay wax fiican u maleeyeen, qaabdaradii ayay u maleeyeen wax wanaagsan. wax walba oo rabbi idin amray qiimahiinaa ku jira, war sharaftiinaa ku jira. gabdhaha muslimaadka u isxijaaba, war ilaahay ka cabsadee jalaabiibta qaata, war ilaahay ka cabsadee is-astura, war ilaahay ka cabsadee amarka ilaahay qaata subxaana wa tacaala. nebiga sala allahu calayhi wasalam laba qolo ayaa imaan doonta gadaashay buu yidhi, laba qolo ayaa imaan doonta aakhiru zamanka. qoom koowaad wuxuu ku tilmaamay dad xaqdarra ku socda, waxay wataan guruumo iyo ulal aad u mooda saynta lo'da oo kale. dadkay ku garaacaan oo xaqnimay ku garaacaan. magacoodu waa magac ka mida magacyada naarta suu nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam. subaxii markay rawaxayaan carro allay ku baxaan, markay soo caraawayaan galabtiina saqad iyo xanaaq allay ku soo noqdaan subxaana wa tacaala. qoomkaasi waa qoom macruufahoo la yaqaano. qoomka labaad rasuulku wuxuu yidhi waa nisaa, waa dumar kaasiyaad ah, caariyaad ah, maa'ilaad ah oo mumiilaad ah. sida loo raadinayaa la arkay gabdha 18 jira ah oo kalaab ka tumanaya, surwaal iyo funaanad bay wataan, islaamnimay sheeganayaan, ummaddii nebi moxamed bay sheeganayaan, soomaalinimay sheeganayaan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa 18 jir, waa 17 jir, waa wax ka sii yar iyo wax markaa ka weyn. waa dumar dhar qaba haddana qaawan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. nimcada allay labisan yihiin, shukrigeeday ka qaawan yihiin. dharjiskooda iyo jasadkooday dhinac banneeyaan, dhinacna way qariyaan. gabdhaa imaan doona ayuu rasuulku dhahay sala allahu calayhi wasalam, waa dhar la'yihiin haddana dhar bay qabaan, dirac bay wadataa, sadrigeedaa la dareemi karaa, la sifayn karaa, caddaan iyo madow iyo guduud, wax allaala waxa uu yahay. waxaa la arkayaa silsilada iyo katiinada u xihan. waa dumar noocaas ah, dadka ayay iilaan, ayagana xaqay ka iila yihiin. ummadday leexinayaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala, waxay ka leexinayaan xaqa iyo taacada iyo diinta alleh. raggii maanta in badan dumar baa fidneeyey, waxayna ku fidneeyeen amarka allay qaadan waayeen.
waxay ku fidneeyeen xijaabkay labisan waayeen, waxay ku fidneeyeen catar iyo barfuun ay bannaanka la soo baxeen, waxay ku fidneeyeen hadal jajaban oo aad iyo aad u jilicsan, waxay ku fidneeyeen wax allaala wixii cadaab alle lagu heli lahaa subxaana wa tacaala. dumarow in badan xishooda, war dumarow xaqii taacada alle ku dadaala. mujtamaca dumar baa laga fiiriyaa, hadday hagaagaan mujtamacu waa hagaagaa. dumarku hadday xumaadaan mujtamaca intiisa kale way xumaadaan. mucaawiya ibn abi sufyaan baa mimbarka nebiga ku istaagay, baashaan burukaday dumarku qaataan buu gacanta ku qabtay. wuxuu yidhi ahlalmadiina aaway culimadiinii, war aawa dadkii xaqa dadka gaarsiinaayey, war aawa dadkii diinka ilaahay dadka gaarsiinaayey. bahashaan markay dumarku yeeshaan ayaa la halaagaa. rasuulkuna xadiis ayuu ku yidhi adduunku waa macaan yahay, macaanka carabkaa jecel saad la socotaan. adduunku wuu cagaaran yahay, cagaarkana indhahaa jecel. labadaba adduunkaa lagu soo kulmiyey. ilaahay khaliif ayuu idinkaga dhigay asagoo raba inuu eega kayfa tacmaluun, saad ugu camal qabanaysaan. fattaqu ddunyaa wattaqu nnisaa, warka cabsada adduunka, dumarkana ka cabsada. fidnadooda aad iyo aad uga cabsada. war qabta in badan oo guryaha geliya, war in badan u diida tabarrujkii safarka maxram la'aanta, war in badan ha u oggolaanina inay bannaanka u soo baxaan ayagoon xijaabnayn, war wax badan ha u oggolaanina inay meelaha fisqigaa aadaan, war wax badan ha u oggolaanina. waayo fidno tii ugu horaysay ee reer bani israa'iil ka dhacday dumarkay uga timid. way isqaawiyeen sida kuwayna maanta isu qaawiyeen, maxalla ayay samaysteen siday kuwayna maanta u sameeyeen, aroosyay ka ciyaareen sida kuwaynay uga ciyaaraan, buraanburo iyo waxaan qiimo badnayn bay diin ka dhigteen say kuwayna diin uga dhigteen. in badan walaalayaal aad iyo aad u xakameeya naftiina, in badan jalaabiibta islaamka qaata. war aayad ilaahayoo magaalada maraysa noqda yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo kursigan ku fadhisa, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo bas raacaysa, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo fasal gelaysa ka soo baxaysa, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna la guursanaayo oo aqalkeeda loo sii kaxaynaayo, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo suuqaa ka adeeganaysa. noqda walaalayaal, in allaala intaad ku dadaashaan xijaabka ilaahay danihiina ku dadaalaa. saad isu qaawisaan baa naarta lidinku qaawinaya, saad diinta alla u nacdaan bay jannadu inid nacaysaa, saad cadaabka saad xumaanta iyo fisqiga iyo qaawanaashaa u jeclaataan yaa ibliis iyo shaydaan idin jeclaanayaa haddii kale. rasuulku intaa wuxuu ku daray waa iilan yihiin, xaqana dadkay ka iilayaan. war ka warrama gabar ziina leh oo qurux leh oon jalbaab wadanin, afka gudud marsatay, dirac khafiifa ku socota ama surwaal iyo shaati wadata, laamigaa intay ku soo baxda raggu say noqonayaan walaalayaal. sow ma arkin 7 jeer inay gadaal idin soo eegayaan, sow ma arkin inay idin fiirinayaan. waa maa'ilaad, way iilan yihiin, dadkiina xaqay ka iilayaan. war sabab ha u noqonina ragga inay cadaab galaan, war sabab u noqda raggu inay hanuunaan. mar allaala marka jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo hanaankeeda iyo taacada allay ku dadaalaysa la arko, yay malaa'igtu ku faraxdaa, xasanaad loo qoraa, rabbi jeclaadaa, shaydaanku ka cararaa. laakiin kuweenna maanta shaydaan baa saaxiib la'a. war saaxiibnimada shaydaanka gooye, xiriirka ilaahay hagaajiya. sidaa darteed ayuu rasuulku intaa ku daray, waxaad moodaa madaxooda ratiga geela ah ee baadiyaha daaqa kuruskiisa oo kale oo iilan. wallaahi inay jannada alla galaan iska daaye, xataa carafteeda heli maayaan buu dhahay sala allahu calayh wasalam. naag walboon jilbaaban inay janno alla gasha daaye, xataa udugeeda heli mayso. naagtaan xijaabanin hooyadkeedu waa jahannamo. tii xijaabka qaadan weysa alla agtiisa carray ku leedahay, tii xijaabka qaadan weysa waxaa dhaxulla looga dhigayaa cadaabka. mid allaala midda xijaabka qaadan weysa waxaa tacaam looga dhigayaa dariic iyo zaquuma iyo geedaha alla tilmaamay subxaana wa tacaala. waxa la cabsiinayo oy adduunka ku cabaysay sharaab buu ahaa. laakiin dumarka kale ee cadaabka la galay ee ilaahay subxaana wa tacaala xijaabkiisii inkiray oo diiday, waxa ka yimaadeen dheecaan ah, kaasaa sharaab looga dhigayaa. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun.
rasuulka sallallahu alayhi wasallam dumarka in badan ayuu la hadlay waxyaabaha uu faray ee uu amray waxaa ka mid ah in xaqa iyo wanaagga lagu dadaalo in diinta ilaahay dhabnimo loo aamino in rabbi subxaanahu wa tacaala laga cabsado khayrka iyo wanaagga in aad iyo aad loogu socdo dumarku in allaala intay xijaaban yihiin bay khayr iyo wanaag u dhow yihiin ilaahay intaa markuu sheegay ayuu yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo moodelada maanta soo baxay iska ilaaliya waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollonkeedaa bannaan way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeedaa la arkaa way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkii baa ku dheggan xaaladda noocaas ayaynan dhicin gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay daacada alle ku dadaal waad u jeedaa nebi moxamed inuu janno leeyahay geli mayso waad u jeedaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina dumarkii maanta qaar baa ololaynaya waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay war haddii moxamedun rasuulullah aadan ka tegaynin mar kastoo xayi cala asalaad aad maqashaad salliga ku istaagayso war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo meel allaala meeshuu geli karo xalaala uu galo qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay ma in la qaawiyaa ma in xafiis la fadhiisiyaa ma in nin u soo galaa ma inay sirwaal qaadataa ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa xuquuqaadkay raadinayaan waa intaa war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gawmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala waidaa bushira axaduhum bilunfaa dalla wajhuhu muswaddan wahwa kadiim haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey wejigiisaa madoobaanayey gabar loo dhalay waxaad mooddaa 70 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بنانك ما soo baxaya waaya gabar baa loo dhalay wax idinkaga dandarnaa ma jiray wax idinkaga foolxumaa ma jiray walaalayaal aabbihii ku dhalay hadduu ragga iska qariyo aabbihii ku dhalay hadduu iska qariyo dadka hadduusan akhyaarta soo ag fadhiisanaynin hadduusan dadka akhyaarta ag imaanaynin yatawaaraa waa dhuumanaya waa isqarinaya xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay ayumsikahu calaa huun am yadussahu fi turaab inuu ciidda isaga duugo waxaan xunee dhashay inuu carada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen ay dar u soo labiseen ay dahab u soo geliyeen godna ay u soo qodeenuu wadaa garkay ciidda ka tirtiraysaa oy leedahay aabbe asna wuxuu u wadaa inuu godka ku rida laa ilaaha ila allah dhaxaasaa alla idinka badbaadiya subxaana wa tacaala surwaalaad u qaylinaysaan oo waxaad u ololaynaysaa in xafiis laydin fadhiisiyo waxaad u ololaynaysaa in dharka laydinka dhigo waxaad u ololaynaysaa inaad baxdaan xaaladdu sidaa ma aha walaalayaal xayaatadan xayaataa ka dambaysa aabbe way tirtiraysaa caradii godkuu qodaayey yaa gerka uga taala aabbe ayadu lahu qabanaya markaasuu ku tuurayaa markaasuu godkii ku ridayaa sayxadeedii qayladeedii oohinteedaa la maqlaa laa ilaaha ila allah xaaladaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana wa tacaala waida almaw'uudatu su'ilat tii xabaalaha lagu xabaalay ayaa la su'aalayaa buu yidhi
ilaahay subxaana wa tacaala marka la su'aalo gabadhii nolosha lagu duugay aaway kii duugay warkii laga gardarnaa haddii maxkamadda la saaray kii gardarnaa ka warrama say xaaladiisu noqonaysaa intay goorgoorday jalaabiibta tasho walaalayaal waxaan aad uga digaya gabdhaha xijaabka moodeelada wata ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waa xijaabkii raaska waa xijaabkii kida waa xijaabkii kida wax la dhaha ma jire xijaab waa xijaabka alla soo dejiye subxaana wa tacaala xijaab waa midka ku astura xijaab waa midka aan korkaaga laga arkin xijaab waa midkan kugu dheganayn xijaab waa midaan khafiif ahayn xijaab waa midaan dharka gaalada u ekayn xijaab waa midaan catar iyo barfuun lahayn xijaab waa midda ilaahay uu ku tilmaamay oo yidhi daalika adnaa an yucrafna taasaa ugu dhow in la aqoonsado inay gabar muslimad ah tahay inay gabar xaraa'ira oo xor ah tahay inay gabar ilaahay jecel tahay jalbaabkaa lagu aqoonsadaa jalbaabkaa lagu yaqaanaa jalbaabkaa lagu aqoonsadaa oo lagu fahmaa daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu ghafuuran raxiima ilaahay waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan maxaa labadaa loo daba dhigay maxaa aayadda labadaa loogu qatimay waa qatin aad iyo aad u qiimo badan wa kaana allahu ghafuuraa alla waa dembi dhaaf badne naag alla la naagtaan xijaabanin oo aan jirkeeda qarinin oo surwaal ama dirac khafiifa ama marag yara garabka saaratee bannaanka ku baxda hadday tawba keenta saacaddan aan joogno ay dawaar laha aado dhar xoog badan oo culus oo shuruudaha xijaabka wata ay labisato ilaahay waa dembi dhaaf badne subxaana wa tacaala la dhihi maayo 20 sano iyo 30 sano jilbaab la'aan suuqa joogtay kaa aqbali maayo xaashaa lillaah ilaahay ma ahan subxaana wa tacaala dembiguuna cafin waana noo dhaafaya wa kaana allahu ghafuuran raxiima waa alla naxariis badan oo dadka aan xijaabka wadanin aan ku soo dedejinin cadaabka subxaana wa tacaala waad u jeedaa ayadoo la qaawan yahay ayadoo xumaan lagu jiro ayadoo diintii ilaahay laga tegey ayadoo xaqa iyo wanaagga aan lagu soconayn yuusan haddana ciqaabka nagu soo dedejinaynin war xijaabku waa quruxdiina naag walba say u xijaabataa naarta looga xijaabaa gabar walba say u xijaabataa ilaahay xumaanta uga xijaabaa gabar walba say rabbi uga cabsataa cadaabka looga ilaaliyaa gabar walba say ilaahay taacadiisii diintiisa u qaadatay jannada alla u heshaa subxaana wa tacaala daa darteed baa ragga in badan ixtiraamaan wanaagna ay u hayaan gabdhaha jilbaaban midda diraca khafiifka wadataa kabaha aan lagu socon karin soo gashatay aad mooda afkeeda waxaan la dayi karin sidii wax dhiig saaran oo kale bannaanka markay ku soo maraysa dhallinyarada gobolka mid ah walaalayaal way dulmiyaan way caayaan dhagax baa laga daba tuuraa qaar baa u fooriya xijaab qaadee bannaanka labiso waa lagu qiimaynayaa saad alla u qiimaysaa lagu qiimaynayaa saad alla uga cabsataa lagaaga cabsanayaa saad alla ugu dhowaataa khayrkii wanaagga lagugu soo dhowaynayaa xaaladaha noocaasa aad iyo aad ha loogu dadaalo rabbina ha laga baqa subxaana wa tacaala ilaahay asagoo noo tilmaamaya xijaabkii qaayihiisa iyo gabadha muslimaddaa sida looga baahan yahay inay ragga ajaanibta uga xijaabato waqul lilmu'minaat yaqdudna min absaarihinna waxaad ku dhahdaa gabdhaha mu'minaadka ah ee iimaanka leh indhihiinna laaba say indhahooda u laabaan war xibinkiinna tarankaa ilaaliya ku dheh say u ilaaliyaan buu dhahay ila subxaana wa tacaala indhihiinna laaba way laabi doonaan sababtu waxay tahay hadal alle iyo amar alle unbay raadinayaan wayaxfadna furuujahunna ku dheh farjiyaalkiina ilaaliya say u ilaaliyaan walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa cawraadkiinna ha muujinina war bannaanka ha soo dhigina ilaa inta muuqata maahane war inta muuqata maahane qolaa waxay tiri inta muuqata waxaa loola jeedaa gabadhii jilbaabnayd oo xijaabnayd oo ayadoo dhan aan la arkayn ayaa fiicneed in la sii qariya haddana laakiin ma qarsoomaysa soo ma aha sidaa ha ku socoto waa waxay dabayli timaaday kor u qaado waa wejiga iyo gacmaha qofba meel unbuu ku tuuraye xaaladdaa walaalayaal aad iyo aad ugu dadaala cawraadkiinna ha muujinina ilaa inta muuqata maahane sida xayawaanka oo kaley bannaanka u maraan maanta walaqad karramnaa bani aadam
waxamalnaahum fi lbari waalbaxr bani aadam waan karaamaynay baxarka iyo barrigaan ku xambaarnay buu dhahay ilaahay waan arsuqnay tayibaadkii sheeyaalka fiicfiican ayaan wax kaga arsuqnay waxaan ka fadilnay wax badan oo waxa aan khalaqnay ka mid ah war xayawaanka fiiriya walaalayaal ayagoo cawraadkoodu fideey bay bannaanka baxaan maxay dhaantaa gabadha gacanteeda bannaanka soo dhigtay rida bannaanka maraysa maxay dhaantaa midda sadrigeedii laabteeda furtay irida bannaanka maraysa maxay dhaantaa midda lugaheeda iyo sishanyaalkeeda iyo lugadheertooda dhammaan bannaanka dhigay ridaa bannaanka maraysa aaway karaamadii aaway sharaftii aaway qiimihii aaway wanaaggii aaway sharaftii iyo ilaah subxaana wa tacaala u sameeyey intaasoo dhan dumarka maanta way dayaceen walaalayaal ha dayacina wallaahi waa laydinkaga sheekaysanayaa in badan heblaayaan arkay heblaayaan saa yeelay heblaayay saa noqotay subxaana allah sidaa darteed dumarka bacdamuu ilaahay dhayman wax ka qaalisan ka dhigay waxay iska dhigeen qashinqubka wax yaala maanta waxay iska dhigeen qashinqubka wax yaala naxay diinta islaamka u tiri nin allaala ninka raba inuu gabar guursado ha iska soo eego waa qarnaashay qarsoonaayeen waa faa'iidadii qiimaha ilaahay siiyey laakiin maanta wuxuu leeyahay maxaan ka eegaa waaba aqaanaaye maxaa ka fiiriyaa waaba ujeedaaye bar idinkaa is yeelay haddaad isqarisaan oo daacada alla ku dadaashaan alla darti aad u xijaabataan wax badan oo khayra idiin hagaagaya wax badan oo sharana ilaahay wuu idinka badbaadinaya subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu sidaa tahay walaalayaal ilaahay asagoo sii tilmaamaya ayuu yidhi cawraadkiina ha muujinina ilaa maa dahara minhaa walyadribna bikhumurihinna khumurtu waa dharka waaweyn waa jalaabiibtii marooyinka culculus war kor ku soo tuura garbihiinna ku daboola waxaad ku soo qarisaan jasadkiina oo dhan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala kor intaad ka keentaan hoos ha soo aado idinkoo dhan ha idin qariyo ha noqoto wax jasadkiinoo dhan kala gaaraayo waasix idin ah walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna caaisha waxay tiri nicma nisaa nisaa'u lansaar naagaha reer madiina wallaahi dumar bay ku badnaayeen markuu alla soo dejiyey walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna maryihii haysteen bay isku toltoleen mara weyn baa ka soo baxday maalintaa wixii ka dambeeyey hal gabar oo toodaa jasadkeeda lama arkin walaalayaal haltooda ah oo ayaga ka mid ah maalintay aayaddaa soo degtay qaaraa habeenkii dhaqda oo subaxii ku soo labista qaaraa habeenkii dhaqanaaya halkaabaa lagu soo aadayaa suuqa oo lagu aadayaa meeshay u baahyaaniin iyo muxaadaraadka masaajidada wax kaloo u dambeeya malaha gacantooda lama arkin dumar baa soo xaadiraya salaada subax nebiga way laabanahayeen ayagoo ku duuduuban muruuqi iyo go'ahooda aan la aqoonsanaynin mid ka mida sida xadiis tilmaamay armaajooyin baa idin buuxa sanduuqyaa idin buuxa iyo boorsooyin saa darteed bax fiiri ta ugu fiican ee ugu wanaagsanee ugu xijaab fiican yaa laga yaabaa qayb ka mida in laga arko aaway dharkaa ilaah suu naguma cadaabaayo suuta rasuulku tilmaamay sal allahu calayh wasalam nimcadii allay hugan yihiin shukrigana way ka qaawan yihiin inay amarka alla qaataan bay ka qaawan yihiin inay dharkaa boorsooyinka ugu jiray labistaan bay ka qaawan yihiin xaaladdu yaysan sidaa noqonin gabar walboo bannaanka u baxda shaydaan ayaa badeeca geysta gabar walboo bannaanka baxaysay khayrkii wanaagga ku dadaal weligaana ha bixin oo ha u tabarrujin sida ay jaahiliga bannaanka u baxaan oo kale xaaladdaasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala dumarkii saasay markaa ahaayeenoo rabbi amray inay qumurtooda isku duuduubaan oo ay jarbaha iyo madaxa iyo jasadka oo dhan markaa ay ku daboolaan ha u muujinina cawraadkiina ilaa ragga idinqaba maahane ama aabbayaalkii idin dhalay maahane ama ragga idinqaba aabbayaalkood maahane buuxulada iyo ragga idin qaba aabbayaalkood maahane wiilashii idinka aad dhasheen maahane ragga idin qaba wiilasha ay dhaleenay dumarka la soo dhaleen waayo maxramkaagii waaye asaga maahane walaalaha idinla dhashay maahane buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waa wiilasha walaalihiin ah wiilasha walaalihiin ah wiilasha ay dhaleen waa kuwaad eedooyinka u tihiin gabdhaha idinka idinla dhashay wiilashii ay dhaleen waa kuwa aad habaryarya u tihiin
xaaladaasuu ilaah tilmaamaya subxaana wa tacaala ow banii akhawaatihinna aw nisaa'ihinna gabdhaha aad muslimaadka isla tihiin maahane intaa ka badan sharafta kaad raadinaysaan maxay tahay xataa kaafiradda khansiirka cunta ee khamrada cabta ee aan rabbi aqoon jasadkiina loo diidayaa sida ilaahay idin qiimeeyey subxaana wa tacaala gabar iimaan kula leh gabar ammaano kula haysataa gabar xijaab kula wadataa gabar kugu ag sujuuda gabar qur'aanka kugu aqrinaysaa gabar noocaas ah maahan inta kale xataa iska ilaaliya waayo qiimaad ka leedihiin alla agtiisa sharaf ayaad ka leedihiin alla agtiisa axkaamtan buu idinkugu soo dejinayaa xaaladaha waxay tilmaamayaan walaalayaal inaad aad iyo aad u dadaashaan allana ka cabsataan aw nisaa'ihinna aw maa malakat aymaanuhunna aw ittaabiciin hayri ulil من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء عيال ير أو أنك لجرنين عورات الضمر انتبهوا إلهي تلمامي سبحانه وتعالى ولي والسي أجيا مركي حجاب كاجي للشيء الله حفظي الله إلهي صعد كاجل كنتروليا ولا يضربن بأرجلهن لقينا دولك أكو جراعنا كبأد مدسني الضمير قول كيس مركي صعوني سكبنا دولك وكدعو يسيتان مانتا sidaa darteed baa lagu shanqarinayaa nin walbo dabaqa saddexaad iyo afaraad saaran daaqaduu soo furi suu kuu eego xaaladda ha samaynina qaab fiican u socda walaalayaal xarakaadka foosha xun iska daaya waxyaabo fara badan oo rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisuu ku inkiray iska ilaaliya walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna si loo ogaado waxa idin qarsoon oo ziinadiina ah watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun لعلكم تفلحون ليبان حجابه كجرا إن الليبان تان بركة ملابستي كجرتا إن دس حجابتان بي ليبان تو كجرتا آدياد هلو دلالو ربنا هلا قبقو خيرك وناقنا هلا قصعد دمر ودمر في عن نقضة وردمر نوريقها النقنينة وردمر درع قفيفة نوقعتها النقنينة درع دمر انتقانا قونوين يساكوين نو لبستها النقنينة دمر نو حجابا أو نو أسطرا أو نو أخلاق له أو نو آداب له أو نو إيمان له أو أنقريا إيقيل اللهين وعيالكو ذا خيرك وناقا كتربية ينقضى تاسا الله سبحانه وتعالى إذن كو وناجينا خير فربضنا الله إذن كو سين سبحانه وتعالى شرف وناقنا أدكو قارسان الدنيا آخره بعدما حالة صداتها قف والبا إيا قبر والبا إذن كمد آها أغاتو حجابكو إنو واجبكو يهي 9 sano ayaa ugu fiican baa la yiraahdaa in lagu bilaabo gabadha walow hadda ay jiraan gabdha ka sii yar 9 oo hooyadii jilbaaban tahay muxaadaro u soo socota gacantay uga soo dhagan tahay teeda yar ayadoo jilbaaban waa wax aad iyo aad loogu farxo waa wax ilaahay loogu mahadiyo subxaana wa tacaala dumarku isku mid ma aha qaar baa aad iyo aad ugu nugul aayaadka alle qaar baa aad iyo aad ugu dadaalaya aayaadka alle subxaana wa tacaala qaar ayaa aad iyo aad u jecel muxuu rabbi rasuulna yiri الله عليه وسلم سي حفظين با الله حفظ يا آيات قال لي حديث النبي سي خيرك وناق وجود دلالين با إلهي الدنود وجود دلالة يا سبحانه وتعالى آديات الدلالة ودونك وميل قابا ولا ليال هذا ما أنت إسقاط سنارتنا لجوجو قويه إلهي سبحانه وتعالى كنوعه بحولها نارت لقاعد ديجمويجا جيجوريا وحقي مبضا معها أدونك ووح خفيف أدونك ووحير أدونك وميل قابا أدونك ميل بوكو إجيهي ولا ليال وآديات الدلالة إلهي cabsada khayrkii wanaagaha ka dhinac marina rasuulkiina jeclaado amarkiisa fuliya sallallahu alayhi wa sallam rasuulkiina ha dhinac marina ee aad iyo aad u qadariya war in badan buu idin qadariya war in badan buu idin sharfa xijaabka waxa hoos imaanaya xishoodka haddaad xijaabantoodan xishood lahayn nin kastaad gacanta la gelayso ka hilibka gadana aan laga celin karin ka yaayada gadana aad dhex taagan tahay ka kalena aad gacanta la aadaysataa laftigeeda xijaab ma aha xijaabka xushmad buu leeyahay walaalayaal sharaf ayuu leeyahay walaalayaal sharaftiisa hagaajiya ha noqonina dad suuqa iskariim ku cuna ha noqonina dad suuqa ku buuqa ha noqonina dad suuqa waxay doonaan ku sameeya xaaladaha noocaas aad iyo aad isaga ilaaliya waayo rabbi subxaanahu wa tacaala khayrka iyo wanaaga iyo xushmada dumarka xijaabkaasuu ilaahay dhex dhigay subxaanahu wa tacaala gabadhii xijaabata allaagtiisa sadii wanaag ku leh taan xijaabanina saan tilmaanay dheecaan naareed waa cadaabke waa cabitaankeeda zaquumo iyo geedka bariicna waa tacaamkeeda kor iyo hoos iyo dhinac walbana waa naar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay adduunku inuu wax yar yahay cadaabka
xijaabka rabbi idin amray oo aad qaadataan haddii kulayl waaye iyo waxa aad dhahdaanna naaru jahannama ashaddu xarra low kaanuu yafqahuun kuwa wax fahmaya haddayin jahannama ka xanuun badan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala wa kaana allahu ghafuuran raxiima waxay tilmaamaysaa xijaabku inuu yahay raxmad inuu yahay qabow inuu yahay khayr inuu yahay nimco inuu yahay sharaf inuu yahay wax aad iyo aad u qiimo badan xaaladaha saasay markaa u jiraan waxaad u ololaysaan oo aad u dadaashaan ha noqoto sidii xijaabka loo qaadan lahaa ee dadaal ha u noqonina yuusan noqonin inaad madaxowdaan yuusan noqonin in wax kale lagu tilmaamo hayuusan noqonin in dharkaa lagaa dhigo wallaahi gabdhaha gaalada gobol ka mid ah ayaa waxaa laga soo tabinayaa low nala xijaabi lahaa qaar baa laga soo tabinaya low guryaha nala fadhiisin lahaa qaar baa laga soo tabinaya low raggeena ay bannaanka nooga soo shaqayn lahaayeen qaar baa laga soo tabinaya oo laga soo warinaya low ilaahay subxaana wa tacaala sida gabdhaha muslimaadka ah khayrkan iyo wanaaggan uu u amray ayagana saasoo kale loo amri lahaa laakiin aaway kuweeni xalaasaa loo hanqaltaagayaa marka dawaarka la aadaayo ee dharka la soo tolanayo harqaalaha gabdhaha gaalada goonadu say u tashaan baa meesha u yaala waxaad arkaysaa gabar fadhisa oo saa u baarbaaraysa gabar u tolan oo gabdhaha nooca imtixaana diinkan haysanin ah habkay u tolatay say u labisatay u labisanayaan say u tolatay u tolanayaan wiilasheena say tan u jaratay u jaranayaan xaaladahaasoo dhan baa la samaynayaa bacdamay xaaladu saa tahay rabbi ha laga baqo khayrkii wanaaggan ha lagu dadaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo karaamaynayaa waana noo nimcaynayaa dumarkeena hadday noo wada xijaabtaan xishoodkana ay ku dadaalaan istixyaha iyo sariigtana ee sidii loogu talagalay ay ula yimaadaan rabbina suu amray ay markaa ula socdaan intaa wixii ka dambeeya ayuu rabbi yidhi waqarna fii buyuutikunna guryihiina iska fadhiya waa sida ugu qiimaha badan hadday damacdo ama se arrin timaado waxaa loo baahday inay dan yeelato waxaa loo baahday inay muxaadaro aado inay suuq ka soo adeegato wixii markaa la mid ah markaasna bannaanka ha u soo bixina sida ay jaahiliga u soo baxaan oo kale buu rabbi yidhi salaada ooga sakada hagaajiyo bixiya rabbi ateeca rasuul ateeca ilaahay khayr iyo wanaag ayuu idin siinaya subxaana wa tacaala dardaarankeena wuxuu noqonayaa xijaabkii jalaabiibta in aad iyo aad loogu dadaalo ربنا لقبق سبحانه وتعالى قبلها مسلمات كأوحان ربي وقبر يا خيرك وناك إنه إلهي وافجيو إنه إلهي جعليسي حجابك حشوتك تبرجك إنه ربك إلاليو صفرك محرم لعنت إنه إلهي كإلي سبحانه وتعالى إن النقضان قبل خيرك وناك كد دالين إلهي سبحانه وتعالى الله ارتقى كبعدنا الجنو ينكي سقيمها بدن إلهي قو أبا المريا سبحانه وتعالى وحبنا بن إلهي كبر يا امتحان وصنع في مطام إنه إلهي سيو انت مرقيسا إنه إلهي مرقتك كقعد سبحانه وتعالى انت مراد له muraadkooda oo khayr ah inuu ilaahay u sakhiro subxaanahu wa tacaala saan khayrkan iyo wanaaggan ugu kulanay ilaahay jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha la midka ah rabbi ha nagu kulmiyo allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin